الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayo ay ka mid yihiin wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha, wasiirka maayarka magaalada, taliyaha ciidanka, wasiirka diinta iyo awqaafta iyo mas'uuliyiin kala badan oo qaranka ka mid ah. waxaa kormeer madaxweynuhu ku soo maray dhammaan deegaanada caasimaddu ka kooban tahay, iyadoo uu ku qaabilay markii hore qasriga uu ka degan yahay magaalada Hargeysa dad badan oo reer Somaliland ah, markii dambana ilaa xaafadda Axmed Mooge ee hoteelka Nasiye, ilaa Cusub, ilaa iyo meesha la yiraahdo Garaan Hadi. intaa ayaanu isu soo maray madaxweynuhu. dhammaan dadka dhalinyarada, caruurta waxaa madaxweynuhu kula ciiday si uu u gaarsiiyo ama ugula ciido ayuu halkaa ugu soo maray. dhammaan dadka wajiyadooda waxaa ka muuqatay farxad, raynrayn, badhaadhe iyo inay arkeen madaxweynahoodii oo la ciidaya caruur iyo ciroolaba. aad iyo aad baanu runtii ugu faraxsannahay safarka ciidda uu madaxweynuhu ku soo maray. dadka reer Somalilandna taasi waxay tusaysaa in ummaddu ay diyaar u tahay inay waddo u wada dhaqaaqdo si midnimo ah, walaalnimo ah, ehelnimo ah, iyo in madaxweynahoodii ay doorteen uu kalsoonida dadka awgeed uu meel kasta isla taago, goob kastana ay ku wada sheekaystaan, shaaha ku wada cabaan, biyaha ku wada cabaan, caruurta la isla sawiro goobo badan. sababtoo ah dawladdu waxay ka timid dadka. runtii kalsooni weyn ayaa shacabka ka muuqatay, annaguna aad baan ugu faraxsannahay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxay farxada maanta inaannu ilaa heer madaxweyne sidaa wasiirka warfaafintu sheegay aad u faahfaahiyey la ciidna dadkayaga oo aannu lug iyo farasba kula ciidno, oo siiba dhallinyarada iyo dumarka iyo carruurta meelihii ciyaaraha loogu talagalay maalmaha faraxa oo cagta soo wada mariyey madaxweynuhu maanta daamaha Hargeysa oo dhan, ayadoo oo asagana farxadi ka muuqato inuu la ciidayo ummaddiisii si nabadgelyo ah oo xasilooni ku jirto, waan xasarad lahayn, u dhex socday intaa dadkiisa. maalinkan maanta dadkuna aad u farxeen, wax ogaa aanay jirin, dad fara badan aan ogayn. intii iman karaysay ay timi madaxtooyada ay ku salaantay, laakiin intii aan iman karayn asagoo xagiisa ugu tegey ayaa wax maanta lagu mahadnaqay, ilaahay lagu mahadiyo ah. aniguna shakhsiyan waxaan halkan uga faa'iidaysanayaa anoo salaan u diraya shacabka reer Somaliland dibad iyo gudaba ciidal fitriga ah ee aynu iidnay Ramadaan, in ilaahay soontiina inaga aqbalo. farxadda ciidana iyo nabadgelyada iyo roobka aynoo da'ay iyo barwaaqada aynu ku jirana inaannu dadka gaadhsiino salaan iyo hambalyo meel ay joogaanba. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan ilaaway ciidanka qaranka, siiba kuwa xuduudaha daadsan ee aan ayagu nasiib u helin xaasaskoodii iyo guryahoodii inay la ciidaan halkay joogaan, inaannu ku gaadhsiinayna hambalyada iyo reeraynta ciidda. aanaannu leenahay waa mahadsantiin inaad qarankiinna u dib jiraysaan, iyo kuwa jooga dalka gudihiisa ayaguna heeganka ah saacad walba noocyada yihiinba ciidamada qaranka ayaan ayagana hambalyo u dirayaa. shaqaalaha wasaaradda iyo dhakhaatiirta xoolaha ku dhex jira ee 6 gobolba ka shaqaynaya kuwaana